soo dhawaada barnaamijkan waanu idinku soo gudbin doonaa marxalado hore iyo maanta berberi maxay ku kala duwan tahay. مدروح مغنايو midkan maalinka tagin inaad gaadhay meel sare barbaray markhaatigu mid quudhato weeye. halkani waa berberadii xilliyo hore iyo berberada waqti xaadirkan ee 2025 sida idin muuqata waa kaaf iyo kala dheeri muuqaalada indhihiinu ka markhaatiga yihiin waana laba kala dheer in qofka waqtigan ku garaadsaday berbero oo qurxoon uu arko iyada oo aan sidan maanta ahayn halka kii hore ugu ogaa sidii ay ahaan jirtayna la ama kaagi doono sida ay u qurxoon tahay iyo horumarka ay ku naaloonayso iyo halka ay maanta joogto magaalada berberi waana sababta aanu dhiganahan daayihiina uga markhaatiga dhignay inkasta oo togbataagtii uu rogmado waxaa jira mudanayaal hore u soo maamulay magaalada berbera maayirna uga soo noqday oo mid kastaaba marxaladii taagnayd majaraha ugu hayay meelna soo gaarsiiyay. waxaan badan la baadi doonaa oo ay dadku ku daareen 22 sanadood berberi waa maxaa ku dhacay berberi maxay la duntay berberi maxay sida la noqotay war berberi maanta koowaade guri iyo qoys iyo qof reer berberi oo halkan maray ma jiro waadam waxaan doonaynaa berberi wax ka bedelaynu doonaynaa berberi maxay wax kaga badali karnaa markaan baahidaada ogaado markaan gurigaaga kula joogo markaan duruuftaada ogahay. haddaba markii uu maayir ciidan magaalada berbera mas'uuliyadeeda maayirnimo midigtiisa ku qabtay maxaa iska bedelay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waa isweydiin aad markhaati kaga noqon doontaan amaba aad kaga bogan doontaan barnaamijka 2012 bishii 11aad waxaan soo taagay inaan musharax u noqdo golaha deegaanka degmada berbera. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u guuleeyay xubin golaha deegaanka soo baxo isla markaana haddana mar kale la doorto gudoomiyaha golaha deegaanka. waxaan shaqadeeda bilaabay si rasmi ah bishii 12/7/2020 ayaan mas'uuliyadda la wareegay. bishii koowaad 2013 ayaan ku shaqeynay miisaaniyadii golaha deegaanka inaga horeeyay diyaariyeen. allah raxmaankii wuxuu noo sakhiray inaan sanadka aanu bilaabno mashaariic aad u fara badan oo runtii madaxweynihii qaranka markaa axmed maxamed maxamuud siinaayo uu ku daalay oo uu yidhi inta dambiyada ku furta waa wadadii aan ku talagalnay xoolaha wadada waa ballaarinay bilaaad waa 4 mitir weeyaan laakiin waa 2 kiiloomitir iyo 200 mitir waxaa sharaf iyo karaamo loo aamudan madaxweyne horumarka uu dalku talaabsaday gaar ahaan degmada berbera inaad loo furto noona barakeyso. markuu 17 mashruuc ahaayeen 17 mashruuc oo mid walba halbuu leeyahay halkaa waxaanu ka bilowday 2013 ayaa waxaan ku khatimnay insha Allah ku khatimi doonaa 2026 ilaa insha Allah sanadka soo socda ayaan sagootin doonaa insha Allah. xaruntii aan aad ugu amaanaya ku faanaya buddig oo ah guusha ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii ka sokeeya golaha deegaanka degmada berbera iyo golihii hore iyo haddii yahay golaha imika joogada haddaanay golahu ku siin saaxad aad ummadda ugu adeegto ma guuleysanaysid. waxa ay gacan iyo isgarabtaag ay igu siiyeen golaha deegaanka degmada berbera labada jeerba inaan bulshada na soo doortay aan u adeego. waxaa noo muuqanayay markii aan soo sharaxayay adeegyada asaasiga ah ee magaaladu inay aada u haysayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee degmaduna runtii ay aada u hooseeyeen. bulshada reer berbera oo runtii inteeda badan aanay cashuur bixiye ahayn oo cashuurta aanay dowladda hoose aanay iyana aan dadku aanay bixin jirin cashuurtana aanay doon jirin laakiin markii bulshadu dhadhansadeen waxqabadkii ay noqdeen inay wadadhexaad u yihiin maanta ama boqolkiiba
afartan ku dhawaad ay ka yihiin miisaaniyadda cashuurta ay bixiyaan dadka reer Berbera wixii noo muuqanayay ee ahaa gaabka anigu waxaan iska soo sharaxay xisbi mucaarada xisbiga cid baan iska soo sharaxay markii aan guuleystay anaa runtii aad ugu mahadnaqaya Axmed Xamuud Siilaayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista ha siiyo waxaana wax macno inoo sameynaysaa ma jirto xisbiga aad ka tirsan tahay waxa macno inoo sameynaya inaad bulshadaada aad u adeegi kartid waxa anagu aan rabno in loo qabto aad u qaban kartid haddaad tahay qof intaa qabanaya waan iska garab taaganaa marka waqtigaas si fiican bay dowladdu aniga sukay garab taagtay shakigii iyo warwarkii faraha badnaa ee xaggooda ka jirayna waa waxaan kaga saarnay waxqabad iyo dadaal sidoo kale bulshada iyo xukuumadda oo ka jiray xoogaa isfahan la-aanna waxaan isu soo dhaweynay inay bulshadii 100% ee dowladdeedii aaminaan ku tiirsanaadaan waxaa saasaa noo saamaxday markaa isbeddelka maanta la taaban karo iyo himilooyinkii iyo rajooyinkii noo muuqday 2016 waxay noo yimi Dhigool magaaladu waxay sida fulkaanaha u qaraxday inay isu diyaarso horumar waxaa sare u kacay sumcaddii dalka sumcaddii iyo sharaftii magaaladan waxaa sare u kacay qiimihii dhulkan lahaa ee dhulka ku lahayd magaalada dhulkeedii waxaa yimi in la aamini karo oo dhulkeena iyo dalkeena iyo magaaladeena wax lagu aamini karo runtii waxaan aad ugu ammaanaya golaha deegaanka degmada Berbera oo gacmo furan kusoo dhaweeyay Dhigool una dhabar adeegay inay guuleysato waayo central government waa siyaasadda arrimaha dibadeed weeyaan laakiin localku waa arrimaha gudaha iyo magaalada inay arrinkaasi suurtagal noqdo oo magaalada iyo dadkaasi aan wax problem ka imanin mashaariicaas dhammaantood guuleystaan waxaa ka timid golaha deegaanka degmada Berbera runtii qof kasta oo magaalada Berbera waqti ka mid noloshiisa soo maray wuxuu garanayaa farqiga u dhexeeya waqtiga ay maanta ay halkay joogto maanta iyo halkay shirey joogtay waana waxa ahaa himilada iyo higsigeyga waxaan rajeynayaa in maamul anaga naga sii wanaagsan insha Allah way qaban doonaan oo halkaa guusha aan gaarnay meel ka sii sareysa insha Allah gaarsiin doonaan waxyaalaha noo qabsoomay waa wax aanan koobi karin haween maayarku oo gudoomiyaha golaha deegaanka ahna gudoomiyaha degmada central government qayb kamid ah ku tirsan yahay qaybta amniga ayuu ka tirsan yahay isaga nabadgelyada degmada saakan mas'uula marka nabadgelyada koono ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa in ilaahay wax dhibaato aanan natusin waa dhacaya qadarku laakiin sida ugu fudud ugu ladsan ay amniga loo xalinayo markasta wax ka yimaadaan biyaha waan ku guuleysanay markii anagu aan magaaladan naloo doortay kursiga aan fadhiyo ayaa soo fadhiistay labaagaas mawaaxeed oo wasaaradda macaanta iyo biyaha ka tirsanaa iyo maarayihii biyaha iyo guddidii biyaha waxay sheegeen magaaladu in hal ceel shaqaynayo hal ceel oo keliya shaqaynayo generatorkii u shaqaynayna wuxuu xumaaday marka magaaladii iska qabada laygu yidhi anna waan cusbaa ilaahay raxmaanka wuxuu noo saamaxay inay maanta tahay wakaaladda biyaha ee qaranku leeyahay ee aan la kabin ee aan caawimo dibadeed aan helin ee sustainable-ka ah iyadoo si fiican u shaqaynaysa ayaanu central government-ka wasaaradda gaar loo jiro wasaaradda biyaha ayaanu ku wareejinay dekreeta madaxweyne lagu wareejiyey anaguna ku sagootinay ilaa maanta waxaanu nahay qudub dhexaad haddii wax ka soo noqdaan cidda keliya kabi karta ama qaban karta hawshaas ayaan nahay caafimaadka aasaasiga ah waxaa noo qabsoomay inaan chance u helno inaan caafimaadka aasaasiga degmada Berbera kule waxa laga yaabaa dadku inay city-ga ka fakaraan magaalada gudaheeda degmada Berbera xagga waa 160 kilomitir xaggana waa 110 kilomitir xagga koonfurtana waa 140 kilomitir intaa waxaa ku yaala 35 xarun caafimaad oo ay 12 MCH yihiin inta kalena ay yihiin bar caafimaad ama BHU ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sakhiray 35 xarumoodba inay dowladda hoose iyadoo ay dhistay qalabaysay shaqaalaha caafimaadka keentay dawada ay iyadoo bixiso free ku bixiso hooyada iyo dhallaanka loo adeegayo lacag la-aan baa loogu adeegaa 35 xarumood halka aanay dowladda hoose aan $1 ka bixin jirin waxaa sanadka ku baxaa lacag $9 milyan ku dhow caafimaadka sidoo kale waxbarashada 62 iskuul oo dugsi hoose dhexe ayaan gacanta ku haynaa waxaan gacanta ku haynaa in ku dhow 734 hawlwadeen macallimiin isugu jira
iyo nadiifisooyin iyo waashmaano dhammaantoodna ay dowladda hoose ay lacagta siiso marka laga reebo 190 macalin oo central government ay bixiyaan. adeegyada asaasiga ah weli ku jira waxaa noo suurtagalay wadooyinka magaalada ku aragteen oo iyaguna ah mafaatiixda ama furayaasha kaabayaasha dhaqaalaha meel kastoo wada laga sameeyo dhulka faaligiisu isbedelaa waxaa isbedela dhismayaashiisa oo hadduu lahaa sandaqada ahayd daar buu isu bedeshaa hadduu buul ahaa wuxuu isu bedelaa misna daar noqdo oo la jaan qaado laamiga cusub. adeegyada asaasiga intooda badan oo dhan baa noo suurtagalay marka waxaan ka shaqeynaa degmada Laasciidle, degmada Xagal, degmada Bulaxaar, degmada Mandheera iyo degmada Laascaawiye, degmada Berbera dhammaantood way hoos yimaadaan oo ah halka golaha deegaanka laga soo doorto. mudane kasta oo gola deegaan oo halkan fadhiyo laga soo doortaa dadkii soo doortay waxa ay degmada Berbera ku celisaa adeegii ay xaq u lahaayeen wixii kolba ay ka qaban karto ay dib ugu celisaa. kuma hadlayno hay'ado kuma hadlayno central government. waxaan noo suurtagalay inaan intaas soo meelo biyo ka sameeyno ceel biyo ah oo la qodo oo dariiqo lagu qodayaa iyo maxaan ku raacdaa kuwa gacanta lagu soo saaraba kuwaasoo loo saaray intooda badan solar ku shaqeeya hawlwadeenada biyahaas dadka biyaha lacag lagama qaado bilaash baa ayaa lagu siiyaa hawlwadeenada joogana dowladda hoose ayaa lacagta bixisay degmada Berbera. waxaa isbedelay hab nololeedkii degmada waxaa rajadeedii diilo weyn ay gashay dhalinyartii barbaartay laga soo bilaabo 2012 kuwaasoo waqtigii hore ka hiloobi jiray dalka oo ku fikiri jiray in ay tahriibaan ama magaalada ka tagaan. waxaa maanta inoo jooga oo maanta maskaxyada waaweyn magaalada gacanta ku haya inankiitu waxa ku dhashay Berbera ku galay dugsi hoose dhexe sare jaamacad ku dhameeyay ee maanta mas'uulka ah qaar agaasimaha ku noqdeen qaar wasiir ku noqdeen oo ay ka dalaceen. waxaa gashay diilo weyn jaamacadaha magaalada ayaan barmood gareynay waxaan ku bixin jirnay sanadkii ka badan $200,000 si ay dhalinyaradaasi waxbarasho bilaash oo heer jaamacadeeda ay u helaan. runtii haddaan socdo wad ma koobi karo waxaas oo dhan marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga yimaado waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka. haddaan isku taago oo tusaale ahaan iftiimiyo magaalada Berbera sideedaba 1952 Toomalaanka magaalada la sameeyay wadooyin runtii Toomalaan kale oo qurux badan bay magaalada marka hore leedahay. ha yeeshee wadooyinka waxaan ugu nimid wadooyinkaasi intooda badan waxaa hayaan burbur. boqolkiiba 60 wadooyinka maanta jira boqolkiiba 60 waa wadooyin cusub oo anagu aan yagleelnay. waxaan doonayaa halkaa inay soo taago waliba bulshada u iftiimiyo wadada anagu 2 jeer baan dhisnaa mar qura ma dhisno. wadooyinka marka aanu tusaale ahaan wadadan doonta marka laga bilaabo hotelka Mansoor ama Batalaale beach la yiraahdo ilaa inta laga gaarayo waa 4 kilomitir ku dhawaad weeyaan marka isku celiyo 4 kilomitir bar bay noqonayaan. wadadaas waxaa marka hore dhanay tarmik road la yiraahdo tarmika oo ah wadooyinka marka hore jeega kuwa lagu daadiyaa. sanadkii koobaad markii aanu hagaajinay hotelka weyne qof kasta oo maanta magaalada yimaada waxaad ku casuunaysaa hotelka magaalada ugu weyn. halka loo maraana waxay ahaan jirtay bus iyo dhas bay ahaan jirtay iyo wada la'aan. wadadaas waxa ay mashaariic ugu horeeyay madaxweyne Silaayo gacanta ka jaray markii aan tarmiga dhignay isla sanadkii labaad haddana asfal baan saarnay. 2 jeer bay markaa wadadaasi adeegeedu ay muddo dheer ay jiraysaa oo asfalkuna macnaha wado wax weeyaan wadooyinka rooga ah. wadooyinka ugu qiimaha badan leh tusaale ahaan marka laga bilaabo meesha lagu yiraahdo wadadan Jaabir Road u bixinay ee Garoon Cabdalle soo martay ku soo wareegta ilaa iskuulada ku soo xidhanta iyaduna waa 4 kilomitir 500 mitir iyadana 2 jeer baan dhisnay. waxa uu yaalay marka hore wado burburtay wadadaas waxaan saarnay termigii baan saarnay andan markana asfalkii baan saarnay wadooyinka rooga ah. waxaan ka saraacnay ilaa 5 wado ama 7 wado ayaan wadada guud ka saraacnay
laba wado waxay dhex maraan xaafadda Barcashiikh oo marka dhakhtarka ka dhaqaaqdo waxay kugu xidhayaan waxa la yiraahdaa diini road baa la yiraahdaa cabdi diini ilaahay naxariisana siiyo masaajidka guud kugu xidhaa ta kalena xamdi shoobe ka dhaqaaqdaa oo waxa ku xidhaa iskuulka waxay ahaan jireen dooxyo idii garan sare Barcashiikh baa garanaysa dooxay biyuhu maraan ayay ahaan jireen dooxa waa la soo buuxiyey saraa loo soo qaaday dabeedna waa la garaacay dabeedna waxa la saaray tarmik adna mar labaadna asfar baan saarnay waxa kale oo ka saraacnay xaafadan la yiraahdo wada jir ama dadku jaamal ay u yaqaanaan wadada iyaduna Umar bin Khattab ka dhaqaaqda ee maxjarka meela deero ku xiranta iyadana waxay doox bay ahayd waan iyadana saas leeg saraa loo soo qaaday waa la garaacay labada jeer baa la dhisay waxa jirta wada kale laba wado kale iyadana jaamal ay gudaheeda marta dina xiriirta martaayo waxa ku soo xiranta meesha la yiraahdo xiriirta horteeda u jaamarta dabadeedana mid jaamarta weyn oo Quba leeyahay Quba road baa leeyahay oo wadooyinka imka quruxda badan leh markii hore dhulkaas waxa oo shaash iyo sandaqado aan indhaha aan fiicneen dadka markay arkaan maantana daaro walba ayaa ku yaala dhir baa ku taalo oo qurux badan ma garan karo qofkii hore u yaqaan wadana ma bay ahaan jirin ba anaga wada ka dhignay waxa ku soo xidhantaa maxaan ku taalada cilmi boodari ama mufada cilmi boodari aan sameeynaa halka wadooyinka aan anagu abuurnay oo aad ku qurux badan waxa kamid ah wadada hormarta Turkiga ee halka ka gasha maxaan ku hadaa anteenada halkii loo jiray ama stabtii hore magaalada waxay kala sareeyeen in ku dhow 4 mitir wadada hore ee magaalada la hayn jirtay wadada kaliya soo gashay waxay jirtay wadadaas dhinacan waxay 4 mitir bay ku hooseysay waxa laga iskaarsan inta ciid galaysa maanta dhulkii uu soo wada kacay baarihina way la kaceen waa dhul siman oo aan garan karin kala sarinta halka inay jirtay bariga hore oo maanta ah dhul wada siman wada laba haada afar haada laba xaqana iyo laba xaqana waxa kale oo jira wadada iyaduna buraaw baxday xoolaha oo aan balaarinay oo iyadana aan ka dhignay 6 gaari ama 7 gaari mari karaan marka yar 500 mitir socdo waxa loo leexdaa maxjarka meel deero ama deero ayaa deerada iyana laamiga ka sameynay يعني haddaan saaco tiri 126 kilomitir ayaan sameynay wixii sanadkan ka horeeyay 126 baa lagu dhufanayaa waa laga laab weeyaan intaan sameynay waxyaalaha dee aan xasuusta marnaba ka meermeen ee aan soo korinay waxa kamid ah ku raaxaysano in hooyadii caanaha suuqa ku iibinaysay ee kullu meel banaanka laga kicinay in saribada loo sameeyay saribada caanaha loo sameeyay saribadii hooyinka saribadii kalluunka oo gaaro dumarka gaar loo sameeyay had celinayna hooyooyinaan waxba haysan oo awlaad korsada ayay u dhiseen maayirkuna aad buu mahadsan yahay magacay waa wax faarax qaabil waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin baan salaamaynaa aad iyo aad buu mahadsan yihiin annagana ilaahay hooyooyin anagu garab istaago hooyooyin baan nahay anaguna iska dayaraha oo magaalada deganaa ilaahay anagu anfaco annagana iyagana ilaahay jisaaya ka siiyo gudii imaan Umar waxaan kamid ahay dadka maanta loo furaayo sariibadan kalluunka runtii waa sariibad aad loogu baahnaa oo haweenka magaalada gaar ahaan Berbera ay aad ugu baahnaayeen insha Allah waxaan rajaynayaa inay noo noqoto mid aanu ka midho dhalno oo aanu ka helno insha Allah faa'iido aad u wanaagsan dawladda hoose waanu mahadcelinayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin anagu fursadna ma naan lahayn maxaan ku rabnaa shaqayn jirin hadda leedahay iskala maantana waxaan helay meel boos aan leenahay inaan ku shaqaysanayno in terminal bus station baskii dadka isku qabsan jireen suuqa falajidi jiray ama gaari khatarta gaari jiray in magaalada laga kaxeeyo loo sameeyay maxaa ka terminal bus station loo sameeyay in goobta akhriska oo public library oo aad u qiimo badan oo guriga weynka 2 milyan ku dhismay iyo dheeraadka ku dhow oo isaguna maanta hoos garaya boqolaal dhalinyarada oo aqoontooda ku farsanaya waxa kaloo aan sameynay maxaan ka duugaa reebka museumka يعني حسن ما دمين كرنا هذا نسمعنا وحكاية ساعة بدل مركب ودوين كذا نتاس كويه كذا واحد ودوين طبعا ما نيجي على ذيك الشغل عاري قاعدين أنا أقولينه
liyaado commercial area oo wixii dekeda ka bilaabmay ilaa madaarka dadku xoreeyaan oo wadooyin waaweyn iyo meelaha ganacsatada iyo hangarada ka dhisteen oo iyaduna haddaad tagto dee magaalo kale ah oo aan magaalada dadka shaqaysta ee normaalka ah iyo dadka bakhaarada unba iyo warshadaha iyo haamaha shidaal ayay inta badan mareen dee adigu inta suuqa laga yaabaa inaad kusoo noqnoqoto magaalo kale xagga inaga xigta oo runtii aad u ballaaran aan ka sameynay 12 kilomitir iyo 4 kilomitir oo iminka gacanta lagu hayo ilaa 16 kilomitir oo asfal ah ayaanu biyo ka dhignay runtii waxaan adigu mahadnaqayaa waa goobta qura ee dadka reer Berbera contribution ay ka bixiyeen wadooyinka halkan contributionka ma isticmaalaan bartadkoodii miisaaniyadooda ugu darnaa dowladda hoose fulisa laakiin halkaas maadaama goob ganacsi tahay gaadiidka maraya gaadiid weyn oo xaddigoodu dhowr iyo 28 ay marayaan wiishashka ugu waaweyn ay marayaan si ay u adkaato wadadu iyo dad ganacsatada sida Omar oo kale Telesom oo kale dib u weyn inta ka khuseysay oo 400 mitir bala ahayd cid kasta wax ka khuseysay waxay ku dareen contribution dadka xukunto awooda weyn aad sheegtaa dadka aad mas'uul ka tahay وين شيء كرتاوي هي كل قبتين اللي حيصير هكذا تاجين ملي هي اللي بتاعنا اللي بتوحنا اللي بالشدة وسكاي قرب تاجتي نقول فرح سن نقول فرح ذي نقول فرح أنت إن شاء الله نقول فرح سنة كتير إن شاء الله وده BBC ده هرتا ولا بكيلومتر ولا بهذا إيه الجيل جيل حنقول تلاقي لنا إن تذكر مقالده يكون في ساعة ويجي لك تمنا لو ينسات كوارع تباه كل كده ما الله لو يعرف نوع تلقيه وده سواء خرج بدنته كل عقد بدنته ودين كيان صار شيء وده صابته بدو شيء بالغ السياق بدي بالغ على إنه هو سكسر نفسه لعقتها لو لسه لعك بدن كوي ودين كل لسه وياه كنتي وحيالها عجائب كأهل يعني لا بروح كل الفقارها إيدين ميجا وين غير الفقارة من هانشرين وحلان شتي هكذا حرمت اللي هاتك تشون العادو اللي هاتك تشون مكان واحد نقطة جيرش كده وضع عصا يحفيسيد وضع سوق شقيسته بوشهان ما هاس كرين كرتو وببليش كمر كده واحد يربع متري سوي واحد متري كنا شباب قلبك ما قفاي متري هذا هو بتاعنا كواس ما يحتاج شيء ده بنانا داودو كده مود سنين ده ملاك كده مود سنين كلامه عن سنة ولا بس ما يسمع شكرا بدل اللي متري بركض بناك يستاج شيء نمك ميل يستاج ماله وحرص من الفقارها وين خريدة ودوين كاس القادة حمرنا يعني رني وحياها وني كلها مرة بيكرة سوق كرين السنة كانوا مقصالحان واحد ناقش في السنة إن صدح كريم بابليك باكلي هذا أنا بيرنس الشغل تاريخ مشكلة كراد برا الله سنة صدح وابط تاني قصور جدو ودمك يا عرضه تلقى الله خاص دمك يا عرضه كلية واحد هذا بدأ عاقل باك يقول كي حشيش كون كرر لنا حشيش كي قولك يمكن بدلنا لو داري أو إلى كيلومتر أو بورتو كشرتو يانا بدوني نقدره سنة بالبلد ببلك باكلي هذا يبنا واحد شيء ما حشركي أو كلبرة وبد أنتي سبدل سنة كرينا كرامة يكون ياران يكون في سان يمال يكون محن كذا كريم باك يبنا إن شاء الله أشياء شيء كم تعي وحكروا شيء سنة كان أنت 7 كيلومتر قلت كحشيش كان من هذا 7 كيلومتر لقى سعري 7 كيلومتر ما حلقت وأنا وده أسمع إن شاء الله متكلم مدارك يا حماس كحدا ويدنا 4 كيلومتر يدنا قرشات سنة كنا كوتشتا وحكوت شراء حنانوين كي إن ويران شن حنانو أو برعف مالها لوبة محن كل هذا لوبة MCH معنى MCH ما كلها هاي أفرادك السعادات وحدا ديك سهوية لما يقعنه هو يقوته من السوق وكستو لقديكو MCH لقديكو أنا حرون عفبال لقديكو وح كل يشقاله صدح شفتي باي منيا صدح شفتي واحد شغالين تورك بدن تخاتين تورك بدن وحسوا كل جاري أمبلاس كها أنت هذو قبل ترين إلا جميع كبدن باي أيام قبلنا ونقول نسكلنا هاي كنت السنة هيدوا كل مرة صدح سنة بس أنا حقوق قبلنا سا لكن عشورة ذلك لقى قاعدة عشورة المواد كوب بحيو واللي قدر نسي سو شرين هانا إن شاء الله مركا يكسي سنة كان وسنة كاسلنا هاي وسنة كم تحلت كيجا مدن بي يعني سيسو كتير إن شاء الله هذه لبض كل حاجة على قلوا
waxaan isu diyaarinayaa doorasho inta ka horeysa bisha shanaad kulligood waad iska garanaysaa jawi doorashaa la gelayaa laakiin kaa sii dardaarmaynaa sii dhamaystirana waxa weeyaan sanadka 2020 oo qorshayaal fara badan lagu jiraan ruux magnaayo midkan maalinka tegin inaad gaadhay meel sare barbaray markhaatigu mid quudhato weeye barbaray hamoogan barbaray hamoogan muddo ruux magnaayo midkan maalinka tegin inaad gaadhay meel sare barbaray markhaatigu mid quudhato weeye barbaray hamoogan barbaray hamoogan mar kalena inaad tahay meeluu mas-uuliyo mayirkeedu hagar baxay markalana inaad tahay meeluu mas-uuliyo mayirkeedu hagar baxay maarinada qurxoon iyo dekad laguma jirtiyo marsadii dhaqaaluhu waa murayadaade berbera saaxil waa berberayaan la moogaa maarinada qurxoon iyo dekad laguma jirtiyo marsadii dhaqaaluhu waa murayadaade berbera saaxil waa berberayaan la moogaa meel kastoo mataaniyo uga dhigo mataalkaba meel kastoo mataaniyo uga dhigo masaalkaba muuqal qurxoonida berbera kasii mudan muuqal qurxoonida berbera kasii mudan berbera kasii mudan meel kastoo mataaniyo uga dhigo mataalkaba